maalmahan damaashaad aan la soo koobi karin sanadihii hore 30 sano burburka wixii ka dambeeyay aan la arag ayaa laga arkay dadkii oo fahmay dawladnimada midnimada ummadda Soomaaliyeed inay tahay wax weyn Soomaalinimada jiritaankeeda inay tahay wax weyn waxaan idin leeyahay meeshiina ka sii wada horumarka ka shaqeeya midnimada ummadda Soomaaliyeed ka shaqeeya dib u dhiska dalka ka shaqeeya wax walba nabadeynta ka shaqeeya isku keenka ummadda Soomaaliyeed inay dawlad walba meel dawlad goboleedyada gobolka Banaadirba inay ahaadaan dad isku duuban ka shaqeeya midnimada ummadda Soomaaliyeed ayaan u rajaynaynaa munaasabadan maanta waxaa fiyooraha u xadhigay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo guddigii qabanqaabada maalinta xuriyadda iyo bulshada ku nool caasimadda oo dhan golaha wasiirada taliyaasha laguma kala harin oo u horeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda waxaan leeyahay horumarka sida wadanku ugu socdo waa dareemi kartiin waxaana sabab u ah dawlad wanaaga iyo dawladda maanta taagan hoggaankeeda wanaagsan